kusoo dhawaada Main Public News Connect akhbaaraadkii raadiyaha Main Public ka baxay isbuucii la soo dhaafay. kusoo dhawaada Main Public News Connect waa wararkii ugu waaweynaa ee ka baxay idaacadda Main Public oo waliba quseeya arrimaha soo galootiga iyo waliba sidoo kale kuwa qaxootiga. haddaba wararkani iyo warar kale oo faahfaahsan nagu soo biir jimco walba adigoo waliba ka heli kara wararkaasi Facebook, YouTube iyo sidoo kale ayagoo muuqaal iyo maqal ah iyo waliba ayagoo turjuman adigoo booqanaya mainpublic.org waliba xariijin connect. haddaba nagu soo biir isbuuc walba halkaas ayaa noo balan ah. anigoo Cabdi Iftin ayaa isbuucani barnaamijka idinla socodsiinaya sida caadiga maanta waa Jimco taariikhda waa April 29 sanadana waa 2022. haddaba daawadayaal qodobada ugu waaweyn barnaamijka aan idinku hayo isbuucani waxaa ka mid ah tirada dadka reer Maine ee ayagu la dhigay isbitaalada laga soo bilaabo maalnimadii Talaadadii waliba cudurka COVID-ka awgiis loo dhigay ayaa sare u kacday 132. waxaa la leeyahay tiradani waliba way ka sii sareysaa midii isbuucii ka sii horeysay taasoo kaliya ahayd 99 dadka la dhigay isbitaalada kala duwan ee gobolkani Maine. haddaba CDC-da Maine ayaa sidoo kale isla Talaadadii isbuucani iyo waliba isbuuc dhamaadkii ka sii horeeyay waa isla Talaadadii waxa ay soo sheegeen tiro dhimasho ah oo ah 2 ruux oo waliba la xiriirta cudurka caabuqa COVID-19-ka. haddaba gobolka ayaa Talaadadii soo sheegay tiro cusub oo dheeri ah oo caabuqa COVID-19-ka ah taasoo waliba gaaraysa 569 oo ay waliba ku jiraan kuwa 3 maalin ee ka sii horeysay Talaadadii ayagu la u daray tiradaasi. haddaba shaybaarka noolaha ee jasiiradda loo yaqaano Mount Desert ayaa ayadu sheegtay inay goobo ay hoy ka dhigtaan dadka ka soo qaxaya ayagu Ukraine oo waliba qaasatan ah dadka saynisyahanada iyo qoysaskooda ayay sheegeen inay siin doonaan meel gabaad ku meel gaar ah. shaybaarka ma uusan helin wax codsi ah ilaa iminka. arrintani ayaa waliba ay sheegeen inay gaarsiiyeen qaxootiga dadka reer Ukraine ee ayagu iminka ku sugan dalkaasi Jarmalka. haddaba dalka Ukraine dadka ayagu dalkaasi Ukraine ka soo cararaya colaadda Ruushka ayaa waliba codsan kara magangelyo bani aadanimo dalkani Mareykanka. ugu dambeynna waxay codsan karaan fiisaha shaqada oo waliba ka helaya caawimaad dadka ayagu Mareykanka ah ama qoys ama shakhsi. haddaba maamulka madaxweyne Biden ayaa muddo aanan saas u sii fogeyn ayagu sheegay inay qaabili doonaan dadka reer Ukraine qaxootigooda qaasatan tiro gaaraysa ilaa 100,000 oo dalkaasi ka imaanaya oo waliba qaxooti ah. midowga bulshada reer Cambodia ayaa maalinnimadii Isniintii ahayd ayagu qabtay dood isweydaarsi looga hadlayo saameynta cudurka ama dhibaatada maskaxda ay ku yeelan karto faca soo jireenka ah waliba kuwaasoo laga yaabo ama cuduradaasoo ay sababaan ayaa la leeyahay ama ay sababto ayaa la leeyahay xasuuqyada ka dhaca dalalka. haddaba shakhsiga loo yaqaano Peng Met Mool oo waliba asagoo ka soo badbaaday xasuuq ayaa sheegay inuu wali la nool yahay dhibaatooyinkii maskaxda ka soo gaaray ilaa muddo 40 sano ah. madaxweynaha bulshadani oo loo yaqaano Thierry Ryder ayaa asagu wuxuu uu sheegay xitaa kuwa dhashay kadib xasuuqa inay dareemi karaan ama saameyn ay ku yeelan karto xanuunkaasi sababtoo ah dadkii ayagu ku soo noolaa dhibaatooyinkaasi xasuuqa bani aadanimo ayaa ayagu wali nool oo sheekooyinkaasi uga sheekeynaya dadka iminka dhashay. shakhsiga loo yaqaano Perun Sen oo waliba asagoo ah qof asaga laftirkiisa ka soo badbaaday xasuuqyada noocaas oo kale ah ayaa asagu ka dhawaajiyay waliba sheegay in dhismaha bulsho iyo waliba is-aaminaadda bulshada gudaheeda ay muhiim u tahay la tacaalida ama ka caawinta dadka inay ayagu la tacaalaan saameynta dhibka maskaxda uu geysan karo.
ugu dambeyntiina bulshada muslimiinta ee ayagu degan deegaanka Biddeford ayaa xaflad afurin ah u sameeyey ama u qabtay bulshada qaybaheeda kala duwan oo weliba kuwaasoo ay ku jireen dad ayagu soomnaa xafladan ayaa isu keentay xubnaha kala ah ama ka kala yimid dalka Ciraaq, Afghanistan, Soomaaliya iyo sidoo kale wadamo kale oo fara badan haddaba bulshada muslimiinta ee Biddeford ayaa sii ballaartay sanadihii ugu dambeeyey ayadoo weliba dad ka yimid dalalka Ciraaq, Syria iyo sidoo kale Afghanistan ay deegaankaasi ama xaafadaasi ka dhigteen meel deegaan ah taariikhda muslimiinta ee magaaladan Biddeford ayaa qoto dheer sida la sheegay Biddeford waxay weliba hooy u ahayd dad ayagu ka yimid dalkaasi ama dad ayagu ay ka mid ahaayeen ama afwan magaalada Biddeford ayaa weliba ayadu waxay ka mid ahayd xarumaha kule masaajidada ugu faca weyn ee dalkani Mareykanka weliba dad ka yimid Albania ayaa joogi jiray halkaasi kuwaasoo weliba warshadaha kala duwan ee gobolka Maine ayagu ka shaqeynayay markay sanadu ahayd 1900-ladii haddaba halkani waa Maine Public News Connect anigoo Cabdi Iftiin ahna barnaamijkani waa idinla sii socodsiinayay sidaan hore idinku soo sheegay barnaamijkani waxaad ka heli kartaan adigoo booqan kara YouTube, Facebook iyo sidoo kale weliba barta mainpublic.org/connect sidoo kale waxaad iska diiwaangelin kartaa warqadeena isbuuclaha ah oo si toos ah emailkaada ugu soo dhacaysa adigoo weliba ka heli karaa akhbaaraadkii ugu dambeeyey iyo wararkii ugu dambeeyey oo weliba qaarkood ay turjuban yihiin weliba qaarkood ay yihiin maqal iyo muuqaal haddaba aad baad ugu maasantahay la socodka barnaamijkani tan iyo isbuuc dambe waxaa suurageliyey taageerada bixiyaan shakhsiyaad iyo sidoo kale aasaasiyaal ayagu ku kala sugan dhammaan dacallada gobolka Maine iyo weliba Seaport Credit Union iyo Avesta Housing waa laba urur oo ay ayagu ka go'an tahay inay isbeddel ka dhex sameeyaan gobolka Maine gudihiisa Seaport Credit Union waxay ku hayaan hab cusub oo xal raadis u ah arrimaha la xiriira bangiga iyo taageero ay u hayaan bulshooyinka kala duwan ee gobolka Maine si aad wax badan ugu ogaato booqo seaportcu.org waa ay ku mahadsan yihiin bulshooyinka cajiibka ah ee kala duwan taageerada ay u hayaan barnaamijkan Maine Public waxay ku faraxsan tahay in sidoo kale ay iskaashi la samayso Amjambo Africa warsidaha rasmiga ah ee gacan saarka la leh Maine Public News Connect